Waan salaamay dhammaan ardayda caalim.com muuqaalkan waxaan idinku tusi doonaa qaabka loogu bedelayo Creator Studio-ha imika ardaydu ay ka cabanayaan ee fahmi waayeen ee dambe ee la sameeyay qaabka loogu bedelayo kii hore. Haddaba si aynu kii hore ugu bedelano Creative Studio-han cusub ee imika inaynu soo geliyay ee aan dib fahmayn ee aan casharka kan ku qaadayo sidaad ugu bedelanaysaan ayaan idin tusi doonaa. Marka Creative Studio-han labadan Creative Studio haddaan ku hadalno waxay ku kala duwan yihiin horta kan hore wuxuu ku fiican yahay fiidiyowyadii baad ka arkaysaa settingkii buu leeyahay si yaro qurux badan oo aad fahmaysid u kala yaalyaalaan kan dambe laakiin wixiisu isku qasan yihiin kaliya wuxuu ku wacan yihiin analytiga iyo waxyaalaha fiidiyogaaga inta daawatay inta minada hoos u dhacay waxyaalahaas baad ka arkaysaa ay ku qurux badan yihiin laakiin ka saxda ah ee qurux badan ee sida quruxda badan settingka aad si fiican uga arkaysid waxa weeyaan waa kan kale Creator Studio-han hore ee aan idinku baray casharada markaasi aynu ugu bedelno istabadan aan marayaad insha Allah iga daba raaci doontaan ugu horeynba si aad u soo bedeshaan waxa aad taaban doontaan halka aad ku aragtaan sawirka ama sawirka channelka ku saaran kadib waxaad tagi doontaa YouTube Studio beta baa ku taala imika kan hore kan dambe imika la sameeyay ee YouTube ku soo daray channel dambe marka halka uu ka ku dhigay ayaa tagi doontaa si aynu bedelno kan dambe aynu ugu bedelno Studio-ha kale haddaba halka markaan tagno waxa uu ku soo saari doonaa page-kan oo kale inta kadib markuu halkan ku keeno sidan oo kale halkan analytiga iyo inta qof ay ku subscribe gareysay iyo waxyaalaha soo halkan ka tusaya dashboard uu ka yara dashboard qurux badan kale marka waxyaalaha la arkayo inkastoo ka kale ka kooban yahay oo kana muhiimsan yahay ka kale options badan leeyahay haddaba si aynu u bedelno keeni hore aynu uga dhiganay YouTube-kii naga bedelay yaa casharada kan idinku dhigay si aynu ugu bedelno waxaad tagi doontaa ugu horeynba halkaa setting ay ku taalo settings ayaa tagi doontaa aad ku arkaysid mouse-kaygu hayo kadib settingska marka aad tagto waxaad tagi doontaa general halka aad ku arkaysid general marka aad tagtid halkan ayaad imanaysaa haddaba halkan imika wuxuu inoo taagan yahay YouTube Studio beta ma fahanti halkan iyada lafteeda haddana si tuso waa current-iga aad isticmaalaysa ee dhow marka lacag sameynaysid lagaaga dhigayo intaasoo lacag waa ku jira marka lacagta isticmaalayso nooceed rabtaa ma US dollar marka US dollar kaas la aqoonsayo imika meesha inoo yaala ka iska daa ka gudayso markaas aynu ugu bedelno keeni haddaba originalka ahaa ee casharada aynu ku tusay halkaas aad taabanaysaa classic baad ka dhigaysaa studio kadib waxaad leedahay save intaa kadib marka aad save tiraaho ku save garanaya halka waxaad ku aragtaa setting is saved marka inta kadib waxaad tagi doontaa YouTube-kaagii ama halkan baaba tagi kartaa halkan muxuu ku soo dhigaya imika halkan kama helaysid laakiin YouTube-ka tagaysaa youtube.com kaagi baad ku noqonaysaa youtube.com inta kadib youtube.com kii markaad ku noqoto halkii ayaa tagaysaa aad Creator Studio ka tagaysaa imika halka markaad ku dhufato muxuu ku soo saarayaa Creator Studio kaliya beta uu ka reebay soo maragtaan Creator Studio saxa ku soo baxay kadib markaad halka taabato waxa uu ku geeni doonaa kii saxda ahaa in casharada ku tusay marka dhammaan settingkii iyo informationkii iyo wixii halkan aad ka arkaysaan aan course-ka idinku tusay video manager-kii live stream-kii waxyaalihi oo dhan halkaas aad ka arkaysaa marka insha Allah khayr bay noqonaysaa casharada kan weyn soo wada insha Allah dhawaan